markaad boqol qof marto hal qof baa ku oranaya kulmiyaanahay inta kale dhamaantood waxay ku oranayaan isbedel baan u baahanahay shalay toole xisbiga kulmiye wafti madaxda sare ka socda yimiday si balaaran baa loo soo dhaweeyay arintaas miyaanay adiga ku muuqan isbedel baa loo baahan yahay maanta marka isbedelkaasi xaguu jira marka dabka ayaa shidaya dab anagu ma aragnay waad arkaysaan oo isma dhaga tire waad maqlaysaan miidiyaha wararka idaacadaha ka baxaya Jabuuti oo kala qolaa timiday waa reer awdal lama oran karo reer awdal ma nimanka Jabuuti yimiday dhaqdhaqaaqina Jabuuti ka wadana cidna la weydiin maayo laakiin bulshada ku sugan gobolka awdal wax dhaqdhaqaaq ay wadaan lama arkayo marka qoladan awdal isteedee Jabuuti ka hadashay soo qaadata adigu ma yaa taageersanta ka kulmiye adigu ma waxaad u aragtaa inuu kala firdhinayo anu kulmiye waxaan u arkaa in aanu waxba soo wadin sidee u dhantayba kama inuu kala kaxaynay dadka de gobolada tagay baad leedahay arkaysaa maxaa su'aasha kale weydiinaysa gobolada inaga tagay ma kuwa kala siirina marka wax loo baahay wax isku hayo umada waxaan halkan stuudiyaha warbaahinta Cishqi TV ee magaalada Boorama ku soo dhaweynayaa aadan cadde oo kamid ah waxgaradka iyo odayaasha magaalada Boorama ugu horeyn waan ku soo dhaweynaya in maxay tahay xogta aad la wadaagayso bulshada بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وعلى بركة الله حكتان أمد الله وداعي وحوي مد حقيقة أو أن عادنا سارنين عادنا صعب كلا جم قارين كرو شذا يبان تي فيها كأركاي قول اللي هي كلمية أو مال إسكو ورصتاي ودرمان توميسا أمدنا جهورين يسوع بين أمد وشيء جيسا وحجرنا شيء جيسا ودون يسا in dul abaara oo lagu engegay ay ka bixiso in lagu barwaaqoobay ay ka bixiso taas baan cadeynayaa aniga oonan xisbina ku jirin wixii jira inaan ummadda u sheegoon u bayaamiyo oo aan leeyahay waxa meesha la isugu keenay ummadaasi waxba kama jiraan ummadda beenyaa loo sheegin ummaddu waxay u baahan tahay wax qooye u baahan tahay wax meel rays leh ku hogaamiye u baahan tahay anigu xisbi hebel iyo xisbi hebel midna ma oranayo laakiin ummaddu waxay u baahan tahay isbedel la helo iyo u baahan tahay haddii se lagu sii jiro tan inaan cidba noolaanayn baan u malaynayaa shalay toole xisbiga kulmiye wafti madaxda sare ka socda yimiday si balaaran baa loo soo dhaweeyay arintaas miyaanay adiga ku muuqan wallahi waxaan u malaynayaa arintaasi mid indha sarcaada iyo ay u eg tahay maxaa yeelay wax alla waxaan dadka meesha isku mid dadkoo la soo ururiyaa ama shaqaale dawladeed baahanaysa ama meel kale laga ama si kale lagu soo ururinaya laakiin ma dhacayso oo ma jirto oo hadaad maanta mikrofoonka la dhex marto maaska ummadda dalka joogta waxa lagu sheegay markaad boqol qof marto hal qof baa ku oranaya kulmiyaanahay inta kale dhamaantood waxay ku oranayaan isbedel baan u baahanahay ayagu shalay taageerayaal fara badan baa iskugu soo baxay arintaasi waxaan oran karnaa been baynu ku sheegi karnaa ummadda dalkan joogta horta meesha durmaan laga tumaba waa lagu yaacaa meel alla waxa lagu durmaan hadii la tumo ummad badan baa yaacdo qaar waxay uba tagayaanba inay bal waxan meesha lagu haya arkaan qaarna waxay u tagayaan daawasho qaarba waxba u tagayaan ma ahayna dadkaas kulmiye ahaayeen maxaa wacay ummaddan horta shaqo ma hayaan oo joog shaqo lama hayo meeshii la saadin meelkii laba qof halka ordayso waa la wada imanayaa oo dadku way iska imanayaan oo iska daawanayaan waayo sababta wax ay qabtaan baan jirin oo ummadii way wada faralaaban tahay marka waxay ku maararoobaan bay rabaan marka taas waxay u eekaydun kubad la ciyaarayo oo ma garanaysaa loo daawasho tagay un bay ka mid tahay wax taageeray meesha kuma jirto oo dadkaasi taageero ma yahay waa sidaasaan ku sheegay marka adigu xisbiga kulmiye maxay tahay ujeedadaad uga soo horjeedaa anigu xisbiga kulmiye waxaan joogaa dalka 5 sanadood 5 sanaba wax ka sii dhaca dalka mooyaane waxba kuma kordhayaan haddii aad dalka eegto xisbiga kulmiye dalmida maalintii uu rayaal wareejinay xilka waan dhageysanayay maalintii lahaa waxaan idinku wareejinayaa dalmida iyo dadmida adduun idinku wareejinayaa ma jiro maanta dalkii midka ah ma joogo dalkii bari u baxsan yahay awda la way dhaqdhaqaaqaysaa waynu maqlaynaa media waynu la soconaa dab baa shidmaya dabkaasi xisbigan kulmiye tala uu ku qaboojiyana ma hayo inuu gaas uu ku sii shido mooyaane u malayn mayno inuu qaboojinayo marka dabka ayaa shidaya dab anagu ma aragnay waad arkaysaan oo isma dhaga tire waad maqlaysaan miidiyaha wararka idaacadaha ka baxaya Jabuuti oo kala qolaa timiday waa reer awdal lama oran karo reer awdal ma nimanka Jabuuti yimiday dhaqdhaqaaqina Jabuuti ka wadana cidna la weydiin maayo laakiin bulshada ku sugan gobolka awdal wax dhaqdhaqaaq ay wadaan lama arkayo marka
bulshada awdal waa bulsho nabadgelyo waa bulsho nabadgelyo doona waa dad u dhashay nabadgelyo laakiin haddii la dhaqdhaqaajiyo way dhaqdhaqaaqayaan maxaa yeelay waxaan maqlaynay miisaaniyadii ku dheeday in wixii loogu daray wadooyinka ahaa inana waxbaba in laga tirtiray baan ognahay wax horumar oo laga sameeyay gobolkana ma aragno wixii ay ku joogsan lahaayeen ay kuwaana kaga hortagi lahaayeen dee waa mashaariic ay furaan waxaan maqlayay musharax madaxweyne inuu yidhi airportkaan dhisayaa shan bilood baan ku dhisayaa waxaan malaynayaa uu riyoonayaa baan malaynayaa dhowr iyo 30 sanadood baan mid walba dhagax dhigaa airportku leeyahay waan dhisayaa xaggaan doonaa kala dhici buu yidhi baa la yidhi xagguu kala dhici maxaa lagu soo kordhin karaa waaban arkaynaa dee dalku wuxuu hayabe way qoladan awdal isteed ee Djibouti ka hadashay soo qaadata adigu miyaa taageersanta anigu wax kasta oo awdal wuxuu kordhinaya waa taageersanahay noocay doontaba haatee wax kasta oo horumar kordhinaya awdal waa taageersanahay anigu laakiin mabda awdal isteed miyaa taageersanta awdal horta waxa la yiraahdaa dhulkan aan joogno iyo awdal leeyahay imikana looma bixinin ilaa qarnigii 15aad horteed iyo awdal la oranayay anigu isteedna waa dhul dee boorama isteed waa la oran karaa sayl isteedna waa la oran karaa يعني هذا wax walba waa loogu yeeri karaa laakiin mabaadida umadu ku socotaa waxay tahay in dhulkan iyo dadkan horumar la gaarsiiyo 80kii wixii aan kaga tagnay baa burburay oo maanta waxba aan ka jirin oo maanta dhulka la siman 30 sano dawladii hore Soomaaliya ahayd 34 sanana tan ay tahay dawladii hore Soomaaliya waxbarasho bilaash ah tani waa lacag oo jaamacada inaan geey karaa ma jiro ujeedada u soo noqo maxay tahay marka ujeedada guudeed soo jeedinaysa ujeedada guudeed soo jeedinaya waxay tahay in umadu ay tashato oo ay ku tashato wixii horumarkeeda ah cid alla cidii horumar ugu baaqaysa inay gacanta qabsato umaduna waa isbedel doon umadu hay isbedeshaan leh isbedel baa loo baahan yahay maanta marka isbedelkaasi xaguu jira isbedelkaas waa inuu ka yimaado bulshada inuu ka yimaado walaalaheen in la wada tashado way haboon tahay oo goboladu inay wada tashadaan inta nimankaan joognay in la isku hayaan ayaa loo baahan yahay cid kasta isku haynaysana cid waan soo dhaweynaa cid kala firdhineysana ma rabno marka kulmiye adigu waxaad u aragtaa inuu kala firdhinayo anu kulmiye waxaan u arkaa in aanu waxba soo wadin sidee u dhantayba kama inuu kala kaxaynayo dadka de gobolada tagay baad leedahay arkaysaa maxaad su'aasha kale weydiinaysaa gobolada inaga tagay ma kuwa kala siirina marka wax loo baahan yahay wax isku hayo umada laakiin ka waran haday dadaal cusub la yimaadaan afar 10 sano waxay keeni waayeen maanta keeni maayaan bayla tahay waad mahadsantahay daawadayaalkaasi waxa uu ahaa aadan cadde oo kamid ah odayaasha waxgaradka reer awdal oo igu soo booqday stuudiyaha warbaahinta Cishqi TV ee magaalada Boorama